khilaafkii u dhaxeeyay garaad jaamac garaad cali iyo sidoo kale cabdiqaadir firdhiye ayaa la xaliyey iyada oo cabdiqaadir firdhiye uu u tegay garaad jaamac isla markaana uu kala hadlay in si hoose loo xaliyo tabashooyinka garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad cali ma aqoonsano maamulka uu hogaamiyo cabdiqaadir firdhiye waxaana hadda xogaha iyo wararku ay tilmaamayaan in labada oday ay wada hadleen xalay xilli dambe kulankoodana bahda warbaahinta laga qariyey iyada oo keliya loo sheegay inay kulmayaan garaad jaamac iyo sidoo kale cabdiqaadir firdhiye baaris aan sameynay dhowrkii saace lasoo dhaafay ayaan ku ogaanay in inta badan kulamadii halkaa ka dhacay diiradda lagu saaray qodobo dhowr ah oo ay ugu weyn tahay sidii loo xallin lahaa tabashooyinka beelahoosaadka baharsame iyo garaad jaamac ay ka qabaan dhismaha maamulka waqooyi bari oo la sheegay in hadda xaaladoodu ay gaartay meel allow sahal ah dabcan sidaan hore idinkugu sheegay oo aan aniguna usii saadaaliyey idinkana aan hore idinkugu bandhigay hadalladeeda haddaad xasuusataan waxaan idiin sheegay in cabdiqaadir firdhiye is-adkaynta uu joojiyo oo uu la hadlo qof walba oo maamulkiisa wax ka tabanaya qofka hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahay hadduu dhexdhexaad yahay hadda cabdiqaadir firdhiye waxaad moodaa marka inuu qaatay talooyinkii shakhsiyaadka isaga ka hooseeya waayo tiro dhowr jeera ayaa la yidhi go'doonkan keliga aa ku jirtid xal ma ahan bannaanka waa inaad u soo baxdaa oo aad la hadashaa cid walba oo maamulkaaga wax ka tabanaysa waa inaad ka bilowdaa garaadada waa inaad ku xujisaa nabadoonnada waa inaad ku xujisaa caaqilada waa inaad ku xujisaa siyaasiyiinta waa inaad ku xujisaa dhalinyarada waa inaad ku xujisaa haweenka waa inaad la fadhiisataa cid walba oo maamulka horta wax ka tabanaysa intaanba laysla gaarin xafladda caleemasaarka iyo madax la casuumo iyo madax la yidhaahdo laascaano imaada iyo amniga intaan laysla gaarin bal tabashooyinka gudaha yaalla cabdiqaadir oo xalli ayaa tiro dhowr jeera loo soo jeediyey laakiin cabdiqaadir firdhiye waa uu ka dhaga adeegay hadda cabdiqaadir firdhiye waa uu baraarugay inaysan waxba soconayn soo xulistii xildhibaanada golaha wakiilada maamulka waqooyi bari waa 83 xildhibaan tabashooyinka ugu badan hadda waxaa qaba dadka dega gobolka sanaag dadka dega gobolka sool meelo ka mid a waxay ka cabanayaan oo ay leeyihiin waxaan annagu xaquuq u lahayn baa beel kale la siiyey tusaale yar aan idiin soo qaato naaleeye axmed iyo maxamuud garaad ayaa waxaa la leeyahay waxay qaateen kuraas aysan xaq u lahayn ma dhibaan meel bay ka cabanayaan jufooyinka hoose waa ay cabanayaan dhammaan cabashooyinkaa markaad fiirisid waxaa is leedahay meesha miyaysan cadaalad ka dhicin sababtoo ah tabashooyinku waxay noqdeen dee kuwo badan way isku aadeen waa isku tageen kadib tabashadii waxay noqotay in xaaladdu dee markaasi ay noqoto midaan waxba laga qaban waayin kulankii marka xalay dhacay waxaan ogaanay in garaad jaamac ugu horreyn la dhegaystay bal wuxuu isagu garaad jaamac horta muxuu tabanayaa cabdiqaadir firdhiye waa uu hor fadhiistay waa uu dhegaystay garaad jaamac bilow ilaa dhammaad tabashadiisa ayuu hordhigay cabdiqaadir firdhiye sidaas si lamida firdhiye wuxuu isna yidhi garaad jaamacow nin odayaa tahay maamulkan u soo halgamay anigu madaxweynihii haddaan ahay waxma qaban karo walaalow armay fiicanta inaan wada shaqayno oo maamulkan yarka ah aan wada shaqayno awal baa puntland iyo somaliland ay maamulka dhinacyada ka fadhiyeene armay hadda fiicanta inaan wada shaqayno oo aan ka wada shaqayno maslaxadeenna oo aan ka wada shaqayno danteenna oo aan ka wada shaqayno sidii maamulkan aan horey ugu socodsiin lahayn ugu dambeyn adiga kulankii wuxuu ku soo dhammaaday si qurux badan cabdiqaadir firdhiye iyo sidoo kale garaad jaamac way isfahmeen kulankana wuxuu ku soo dhammaaday si qurux badan oo wanaag iyo walaaltinimo iyo is-ixtiraam ayuu ku soo dhammaaday waa la ballamay kulan kale ayaa lagu ballamay haddii allah awoodala uu raalli ka noqdo oo mar kale in la is arko oo xaajada laga wada sheekaysto laakiin markaad eegtid cabdiqaadir firdhiye waxaa sugaysa safar dheer oo ay tahay inuu u alaabo gurto waa inuu la hadlaa puntlandta la leeyahay waxay dullaan ku tahay maamulka waqooyi bari laftirkeeda waa in lala hadlaa waa in cabdiqaadir firdhiye garow uu tagaa dani uu la fadhiistaa golaha wakiilada guddoonkooda uu la fadhiisto lugatoor oo isku meel ka soo jeedaan uu la fadhiisto maadaama dhulbahantay isla yihiin laga wada hadlo wadciga jira iyo in runta laysku sheego kadibna wixii tabasho ah iyo khilaafaada ee jira si hoose looga wada hadlo muhiimaddu waa intaa un in halka iyo halka laga dhaca midna maahan firdhiye iyo garaad jaamac
halkaasaan uga baxayaa warkooda. waxaan eegayaa xiisadii ka taagneyd magaalada Badhan. waxaad moodaa xiisadu inay weji kala yeelatay. wararkii ugu dambeeyay oo aan hadda helayno ayaa waxay tilmaamayaan in xiisadii halkaa ka taagneyd ay weji kala yeelatay. waxaa soo baxaya macluumaad iyo warar sheegaya in Siciid Cabdullaahi Deni boqolaal ciidamo ah oo daraawiish ah iyo ciidamada la yiraahdo BMBF ama Mariniska uu ku daabulayo meelo fara badan oo ka mid ah Sanaag aaga magaalada Badhan. Badhan shalay waad ogeedeen dagaal ayaa ka dhacay, 3 askari ayaa dhimatay. mas-uuliyadda wixii dhintayna waxaa la weydiinayaa Siciid Cabdullaahi Deni, sababtoo ah wuxuu weeraray ciidamo meel lagu tababarayay, meelna tababar lagu siinay bay ciidanka BMBF weerareen. khasaare halkaa ka dhashayna waxaa la sheegay mas-uuliyaddiisa inuu qaadanayo Siciid Cabdullaahi Deni. hadda wararkay macluumaadkan helayna ayaa waxay tilmaamayaan in beesha Warsangeli sidaas si lamida boqolaal ciidamo ah ay ku daabulayaan gudaha magaalada Badhan oo saacadba saacadda ka dambaysa laga cabsi qabo inuu dagaal halkaasi ka dhaco. xubno saraakiil ah qaarkood oo ka tirsan maamulka waqooyi bari waxay sheegeen in haddii dagaalku uu sii cuslaado ay difaaci doonaan maamulka waqooyi bari oo aysan taasna cidna kala tashanin. tan oo markaa loo arkay inay xaajadu isku rogtay meel aan waxba laga qaban karin oo ay tahay in si hoose xaajada loo xalliyo. xubno saraakiil ah ayaa waxay tilmaameen in 48 saac ee lasoo dhaafay sidaas oo kale ay jireen macluumaadyo la xiriira in laga cabsi qabo in ciidanka Puntland ay dagaalka si toos ah ugu soo biiraan. wararku waxay intaa ku darayaan in Siciid Cabdullaahi Deni laakiin uu qaatay markan go'aankaas oo aad loola yaabay oo ahaa mid ay dadku si weyn uga argagaxeen oo ay leeyihiin badee arrintan wax macquul ah ma ahane waa in si degdeg ah arrinta loo xaliyaa. xogaha waxay tilmaamayaan in haddii aan si degdeg ah xal looga gaarin tabashooyinka hadda jira ee wax badan isbedeli doonaan, iyada oo saacadda ka dambaysa lama qalayo dhawaaqa digniino kale iyo handadaadyo ka imaanaya dhinaca Puntland oo la leeyahay beesha Warsangeli dagaal ayaan la gelinaa. Siciid Cabdullaahi Deni hadduu go'aan dagaal qaatana dabcan cid ay maanta dan ugu jirto ma jirto, sababtaa gobolka Sanaag Siciid waa looga badan yahay. ciidanka Warsangeli gurmad ayay dhinac walba ka heli karaan, ceelbuhu bay ka heli karaan, waxay ka heli karaan Xingalool ka heli karaan, waxay ka heli karaan Badhan, waxay ka heli karaan Dhahar. laakiin Siciid Cabdullaahi Deni ciidankiisa in go'doon la geliyo oo ciidankii laga dhiga dee wax aan waxba ahayn isaga dan ma ugu jirto. saaxiibayaal wuxuu ku soo kordha wararkeena dambe ayaan idinkugu tamin doonaa. haddii tahay markii kugu horreysay nagu soo biro subscribe channelkan waa mahadsantihiin. jimco wanaagsan, soo dhawaada saaxiibayaal.